السلام عليكم أصحابتي قاaliga dhamaantiin kusoo dhawaada cooking saacada dhamaantiga cusubtiina fadlan kusoo dhawaada family subscribe ka dhinacaysan gambaleel yaris ay ku yaala gambaleelkaas furo mar wal video aan soo gelisay dhaqsiinay soo gaaraan soo asxaabta maanta waxay idin tusinaya buri bajiye aad u macaan badan oo aad saasan oo guri aad ka samaysan kartiin asxaabtiga codsadeen inaan u soo geliyo video bajiye sida loo sameeyo marka maanta waxay idin tusinaya bur macaan badan iyo bajiye aad saasan sida guriga aad uga samaysan kartiin marka waxaan rajeynaa videogan dhamaantiin inaan ka faa'iido doontiin maanta marka bisha ramadaankan zaad ayuuna anfici doonaa marka insha Allah duu ilaahay gaarsiida saad baaquliga ayaan soo qaaday kadibna had waxyaabaha aan ku shubay sidaan u sameeyay ayaan tusinaa soo had hal bakeero caano ayaan ku shubay baaquliga dhexdeeda kadibna waxaan ku darayaa nus bakeero oo biyo ah waa aragteen bakeeriga caanaha ayaan u isticmaalaa nus bakeero biyo hal bakeero caano iyo nus bakeero oo biyo ayaan isku daray kadibna waxaan ku darsanayaa 4 qaado oo sokor ah sukartana asxaabta aragteen sukartaan isticmaalaa sokor cad waay hadaa haysan sokor cad laazim ah sokortii adiga heli kartid aad ku darsan kartaa kadibna waxaan ku darsanayaa nus qaado oo cusbo ayaan ku darayaa cusbo badan ku darin kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaado oo subag midkaan ku daraayo midka rootiga la marsado waa cusbaha marka hal qaado ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaado iyo bar oo kala saliid qiyaastiisa andeen waxaan ku darsanayaa khamiir ayaan ku darayaa hal qaado iyo bar oo khamiir ah ayaan ku darayaa marka intaas markaan isku daro had waxaan ku darsanayaa nus qaado oo baking powder ayaan ku darayaa marka intaas waxyaabo ayaa muhiim ah loo baahan inaad ku samaysid burka soo intaas markaan isku darada si fiican aan u qasaa si subagaas aan ugu daray inaa wax xiriis oo dhilaala marka asxaabta suuga meel walba aad ka helaysiin subagii oo rootiga lagu cuno waa diyaarka marka kaas daniyaal kaas ku darsa zaad ayuu macaynaya burka soo dhadhan oo nooc kale ayuu siinaya ay caraf gooni ayuu siinaa marka oo suugaas lagu daro soo insha Allah waxay rajeynaa adinkan inaad sidaas sameeysiin soo had waxaan ku darsanayaa bur 2 bakeeri iyo bar oo bur ayaan sameeynayaa marka inta waxaan isku dardaray qiyaastiis 2 bakeeri iyo bar oo bur waay soo intaas markaa sidaas u sameeysid hal bakeeri caano iyo nus bakeeri oo biyo markaa isku dartid 2 bakeeri bar oo bur ah ayaad ku qasaysaa kadibna hada si fiican aan u qas asxaabta oo aragteen burka sidaas ayaa la rabaa culeys zaad ma la rabo biyana ka dhigan jilic zaad ma la rabo sidaan ayaa loo baahan yahay ka dhigtid burka dhow marka aad dubaysid si fiican inuu ku noqdo marka cajiinka qasitaankiisa inaad sidaan ka dhigtid waaye hadaa zaad u jilcisid hadhow marka aad saliid aad ku ridid saliid badan ayuu ka qaadanaya laakiin marka wax yaris culeys ka dhigtidna maasha Allah hadhow ayuu ku noqonaa soo asxaabta dabacdaas oo plasticta ayaan ku daboolay baaquliga kadibna meel ayaan iska dhigayaa waan sii qamiirinayaa soo aad aragtid dabool ayaa ku dabooli kartaa hadaa plastigaas ku yaalana bacdaas plastic ayaa ku dabooli kartaa marka hada meel ayaan iska dhigaa ilaa 30 daqiiqo kadibna arki doontiin burkeena sidoo noqonayo soo asxaabta hada 30 daqiiqo ayaa laga joogaa marka burkeena waa aragteen sidoo u qamiiray marka dabacdaas aan ku daboolo ayaan ka saaraya kadibna waa idin tusi doonaa sida kale aan u sameeynayo burka inaan sidaan u qamiiro laazim waa burka asigoo qamiirin oo wax yaris dhiman hadaa ku dubtid burka dhow dhexdiisa dhan cajiin ayuu ku noqonaa sidaas ma la rabo marka waxaan sameeynaa baaquliga wax yaris saliid ayuu ugu jiraa gacmaha ayaa sidaas u marinaya si aan bur qiyaas ah aan ugu gooyo marka sidaas ayaan sameeynayaa cajiinka wax yaris aan isku qasayaa zaad oo qasin jis wax yaris ayaa loo baahan yahay inaad u qastid kadibna hada saliid ayaan dabka saaray marka saliid ayaan sugayaa intuu wax yaris kulaado saliideena diyaar way kuleelay marka hada waxaan sameeynayaa gacmaha wax yaris saliid marka marisid faraha wax yar oo bur qiyaas ayaa soo goonaysaa kadibna saliid aad ku dhex ridaysaa saliida inuu qaboob zaad ahaado ma aha kuleel zaad ma loo baahan dhexdhexaad ayaa loo baahan yahay inaad ka dhigtid si burka ay ka gubanin inta adiga burka kale aad ku ridaysid saliid dhexdeeda marka buro dhaqsi waa oo aad u macaan badan insha Allah adinkana baroowe aad uga heli doontiin soo asxaabta kuuska aad ku ridaysidna zaad u weyneenin jas wax yar oo qiyaas ah soo goo cajiinka kadibna saliida ku dhex rid saliid marka ku dhex ridid wax yar kadib waa arkaysaa saliid marka ku ridid cajiinka zaad ayuu soo fuuraa sidaan ayuu ku noqonayaa marka kuuska qiyaaskan ayuu ku qurxoon badan yahay burka zaad u weyn oo uga dhigin si qurux badan oo yaris sidaan ayuu ku noqonayaa kadibna markaad dubaysid maanta dhan qaadada sidaasina ugu haysid waa si ay ka gubaneen burka dhinac walba inaad u gadgadisid waaye ilaa kalarka adiga rabtid inuu ku noqdo hal meel ku dhaafin hal dhinac hadaa ku dhaaftid halkaas dhinac ayuu ka gubanaya dhinaca kale nooc kale ayuu ku noqonaya marka burka waxa uu ku qurxoon badan yahay kulli hal kalar inuu ku noqdo
soo marka aragteen waxay rees waan sii sugayaa kadibna sidaas ayaan ku wadaa dhinac walba ayaan u gedinaa ilaa kalarka aniga rabo aan ka dhigo. soo asxaabta aragteen burka maasha Allah siduu noqday bur aad u macaan badan oo aad u sahalsan waaye insha Allah waxaan rajeynayaa dhammaantiin ka faa'iidi doontiin recipe-gan burka guriga sida looga sameeyo. soo adinkana baroowe insha Allah marka asxaabta waan sii sugaa wax yariis inuu dhinaca kale ii gaduuto kadibna waan ka saarayaa. soo asxaabta hadda diyaar waa burkeena sidaas ayaan rabaa kalarkiisa inaan ka dhigo marka hadda waan ka saarayaa. soo adinkana insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen videogan waxyaabaha aan ka sameeyno waxyaabo aad u sahalsan waa ukunum u baahantid inaad ku dartid just sidaas ayaad ku dubaysaa. adinkana baroowe waa arki doontiin siduu u macaan badan yahay siduu u dhadhamaayo. marka asxaabta saliidaas ayaan ka saarayaa kadibna marka qaybta kale aan dubayo waxaan sameeynaa stoofka waan gaabinaa marka saliid aad ka saaraysid burka stoofka iska gaabi si hada qaybta labaad marka aad ku shubeysid ay ka gubanin because saliid markay zaid u kuleeshahay burka marka aad ku ridaysid dhaqso ayuu ka gubanaa marka waxay halraa saliid dhexdhexaad inuu ahaado mar walba marka oo burka aad ku ridaysid. waa ka asxaabteeda qaaliga burkeen dhan sidaas ayaan u diyaariyay kusoo dhawaada dhammaantiin videogan haddaa ka hesheen sidaan u sameeyay burka maanta marka videogan like saar sii share gareysii walaalahaaga asxaabtaada kale oo arkaan ay ka faa'iidaan. asxaabta maanta iga cusubna kusoo dhawaada family subscribe saar subscribe ka dhinacaysan gambaleel yaris ayuu ku yaalaa gambaleelkaas riix mar walba videohan soo galeysii dhaqso inay soo gaaraan. marka waa ka asxaabta burka dhan sidaas ayaan u dubaaya markaan soo diyaariyay sidaas ayuu noqday kulli dhammaan. marka 2 bakeeri bar marka aad qasatid burka intaan bur ayaa kaaga soo baxaya marka 2 bakeeri bar bur qiyaastiisa intaan oo bur ayaa kaaga soo baxaya laakiin hadaa bur badan rabtid oo u badsanaysaa wax badan zaid ayuu ku noqonaa marka burka si adiga u badsatid waa hadaa bur badan qasatid wax badan ayuu ku noqonaa hadaa 2 bakeeri bar qiyaastaan qasatid aniga aan sameeyst intaan bur ayuu ku noqonaa hadaa rabtid 1 bakeeri bar oo bur ayaa sameysan kartaa inta qiyaas adiga rabtid ayaad sameysan kartaa burkan qiyaastaas ayuu kugu soo baxaya marka inta adiga rabtiin qiyaasin ayaa sameysanaysin just waxyaabaha aan ku daray sidaas ayaad ugu dareysaa kadibna bur sidaan oo kale ayuu ku noqonaya. soo asxaabteeda qaaliga burka sidaas ayaan u diyaariyay waa aragteen marka bur aad u sahalsan oo aad u jilicsan waaye sida suuf oo kale waa dhexdiisi marka waxaan rajeynayaa qaybta hore burka sidaan u sameeyay inaad ka faa'iideen marka waxay idin tusinayaa sidaan u sameeyay bajiyaha marka asxaabteeda qaaliga sidaas la socda. waxaan soo hada baaquligan waxa iigu jira digirka oo bajiyaha waaye marka asxaabta digirka bajiyahan laba nooc ayuu jiraa nooc asigoo mid oo gaduud ah mid cad ah midka sidaan wax yariis oo cad ah macaan zaid waa midka gaduudna uu macaan yahay laakiin cadaanka saan marka soo gadatid zaid ayuu u macaan badan yahay marka insha Allah digirka marka soo gadanaysin fiiriya nooca adinka soo gadanaysin marka daa nus kiilo ayaa baaquliga ku shubay kadibna biyo ayaan ku qasayaa ilaa 8 saacadood ayaan dhaafayaa waqtigan qasaa 2 saac subaxii waaye marka 10 saac oo kala galabtii ayaan diyaarsana waxyaabaha dhan marka biyahaas ayaan ku qasay meel ayaan iska dhigayaa ilaa hadhow insha Allah 8 saacadood ayaan meel dhigayaa kadibna oo u sii laaban doonaa. soo asxaabta hadda meel ayaan iska dhigaa ilaa 8 saacadood kadib ayaan isku sii laaban doonaa insha Allah. soo asxaabteeda qaaliga hadda waxaa joogaa 10 saac oo galabnimo waaye marka digirka bajiyahan waxaan qasay subaxii 2 saac soo 8 saac ayaa laga joogaa hadaa rabtid muddo badan dheer waa qasi kartaa oo iska dhaafi kartaa hadaa rabtid habeenkii ayaa qasi kartaa kadibna sidaan jileec ayuu noqonayaa marka waxaan sameeynaa si fiican aan dhaqaa waxaas qashin oo digirka ka soo fofoqdan si fiican aan u safeynaa kadibna waa idin tusi doonaa marka asxaabta aragteen digirkeena si fiican aan u soo dhaqay marmar waxa uu ku jiraa dhagax iska ilaali marka dhaqaysin si fiican u dhaqa marka digirka marka aan soo safeeyay nadiif aan ka dhigay waxaan ku shubay basal aan soo jarjaray kadibna haaf yaanyo aan soo jarjaray ayaan ku daray andeen waxaan ku darsanayaa barbarooni aan soo jarjaray ayaan ku daray kadibna waxaan ku darayaa cimbo waaye cambo miskooto waaye midka ciiriinka ah noocaas ayaan ku darsaday marka cimbahaas hal xabo aan soo jarjaray ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsanayaa tuun ayaan ku darayaa marka intaas waxaan isku daray kadibna makiinadaas ayaan ku shiidaya makiinadii adinka haysan ayaa ku shiidi kartiin aniga bajiyada markaan shiidanayo asxaabta biyo ma ku shiido just sigoo qaleel ee sidaan aan shiina because makiinadaan isticmaalayo biyo ma loo baahan inaad digirka aad ku shiidid just sidaan aad ku shiidi kartaa marka noocii adinka helaysiin ayaa ku shiidi kartiin makiinadii adinka yaalo aniga noocan isticmaalayo noocan waa basbaas wax walba kan ayaan ku shiidaa marka asxaabta marka aan kan ku shiidayna wax biyo ah ma ku daran digirka qaleel waaye waan soo dhaqay just kadibna wax biyo ah ma ku daran just makiinad sidaas ayaan ugu shiiday soo hadda waan shiiday asxaabta diyaar waa bajiyaha dhan daqiiq ayaan ka dhigay sidaas ayaan u diyaariyay
hadinkan waxay haysiin ay ku shiidi kartiin just biyo ka dhigan bajiyada markaa shiidaysid hada biyo ku dartid waxay ismeel dheer biyo ku darsid daarabtid laakiin biyo badan ku darin and then waxaan ku daray hada kabsar caleen si yar u soo jarjaray kadibna qaadadan waxa igu jira basbaas waaye chili flakes hal qaada ayaan ku darsaday basbaaska gaduudka oo la soo dhambalo waaye kadibna waxaan ku darsanayaa cusban qiyaasiin ku darsaday intii adinka afkiina qaadis ayaa ku xiran marka cusbaan ku dar kadib waxaan ku darsanayaa qamiir ayaan ku daraa ama leewato sida u taqaantiin marka hal qaado yar qiyaastiisa ayaan ku daraa oo qamiir asxaabta bajiya marka lagu daro leewato ama qamiir asxaab sida u aqaanaan marka dakaas ku dartay zaad bajiyada ay u macaaneysaa marka waxay u noqonaa sida suuf oo kala dhaxdiisa bajiyaha marka duubtid qaleel adeeg ma noqonayo bajiya zaad u macaan badan oo aad u jilicsan ayaa kaaga soo baxaya insha Allah waa arki doontii marka aan dubo sidoo noqonayo marka asxaabta marka aan sidaas aan u qas ilaa adiga 3 daqiiqo ayaa meel iska dhiga bajiyada kadibna hadda waan sii dubayaa marka asxaabta marka qamiirkaad ku dartay bajiyada dhaxdiisa waxa uu noqonaa suuf oo kala jileec ayuu noqonaa sida isbuunyo oo kale marka sidaas darteeda marka bajiya aan sameeysan anaga leebato ama qamiir soo xiriisan aan ku darsan ayaan jecelnahay si bajiyaha dhaxdiisa ma sha Allah u noqdo soo insha Allah adinkan waxaan rajeynaa dhamaantiin ka faa'iido doontiin recipe-gan oo bajiyada maan sidaan u sameysanayo maanta casri ahaan u sameysanayna marka waxaan jeclaaday asxaab badan iga codsaa mar walba bajiya sidaan u sameysano marka waxaan jeclaaday inaan la share gareeyo recipe-gan oo bajiyaha maan sidaan u sameynayo I hope dhamaantiin ka faa'iido doontiin this quick recipe oo bajiyada maanta aan soo galiyo bajiya zaad u macaan badan waa hada sidaan u sameysatid biyaha ka yaree bajiyaha hada biyo ku darsanaysid hada makiinada noocaan haysanin makiinada kale markaa ku shiidaysid waxay riisinaa biyo ku dartid waa marka biyaha markaa ku dartid waxaa sameyn kartaa hada rabtid biyo markaa ku shiidid hadho caano miir ayaa soo qaadi kartaa bajiyada meesha ayaa ku shubi kartaa soo biyaha si qaleel u noqdo oo ka baxo sidaas ayaa sameynaysiin kadibna bajiyaha qaleel ayuu ku noqonaa hadho markaa dubtidna sidaan kuskuus ayaa kaaga soo baxaya oo saliid qaadanaynin marka asxaabtu waa aragteen bajiyada sidaas ayaan u dubay sida naqdan waa aragteen kuskuuskaas ayaan ka dhigay bajiya zaad u weyn ma jecli jis bajiya qiyaas oo qurux badan ayaan jeclaa inaan ka dhigo soo asxaabtu waa aragteen bajiyaan sidaas ayaan u diyaariyay asxaabtiga codsadan bajiyana u soo galiyo waxaan rajeynaa videoga inaan ka faa'iideen dhamaantiin inaan ka faa'iido doontiin insha Allah ayaan rajeynayaa marka bisha ramadaanka zaad ayuuna anfici doonaa insha Allah recipe-gan burkii bajiyaha marka waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaan ka faa'iideen asxaabteeda qaaliga soo bajiyadan waan sii dubay diyaar waa bajiya kuskuus aad u macaan badan oo aad u sahalsan waa waxay rajeynaa dhamaantiin inaan ka faa'iideen asxaabteeda qaaliga videogan burkii bajiyaha marka videogan hada ka hesheen maanta burkii bajiyaha sidaan u sameeyay videogan like saar si share gareesi walaalaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan dhamaantiin waa sabtiin asxaabteeda qaaliga welcome ku soo dhawaada channelka subscribe saar asxaabta nala joogeen waad ku mahadsantiin sida always dhiirigelisiin marka asxaabteeda qaaliga videogan burkii bajiyaha intaas ayuu ka eegyahay baaquligaasna waxaan ku shubanayaa basbaas cagaar oo aan soo shiiday videoga basbaaska sidaan u sameeyay channelkii ayuu ku jiraa channelkayga hada gudaha gashid waxaad arkaysaa videoga laba nooc basbaas aan sameeyay guriga marka meesha aad ka fiirsan kartiin basbaaskan sidaan u sameeyay soo asxaabteeda qaaliga videogeena maanta burkii bajiyaha intaas ayuu ku egyahay until then insha Allah next video ismaqli doona with new recipe dhamaantiin khayr badan ayaan idhaafadani meel walba ka joogtaan and as always ducadii waxa xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh